agabar baan ka soo noqonay dabeetana kala bayn markaan ka sheekaynay bebeeyada gubaya oo markaanu agabar ka nimid iyo ciidankii uruska oo badnaay oo dhowr nuuc oo maganasa Sayd Ali iyo 20aad iyo 5aad oo dhan oo dhameystiran oo ururkii labaad laho ururkii koowaad laho ururkii saddexaad laho oo agacadii ragaas hogaaminayaan mar dheere iyo buurana iyo ragaas hogaaminayaan ee markaa meesha maraya maxamed Jacboq baa hogaaminaya markaa dagaalka taliyaha guud ee markaa ina bixiyo nawaad santarka sare weey markaa ina bixiyo aad buu ugu badan yahay mar walba uu nala joogaa sida badanka bil iyo xogaa beebada xilligan gubaya waa xilli kala badhbay markaa marasa oo markuu soo gabagabeeyay laakiin bil iyo xogaa buu qaato waxa way beerdheylaya diyaaraduna way rusheynaysaa diyaaraduna way rusheynaysaa weerarkaasna mar qura isba taagayo markaa inay halkan naga jabisay doonaysaa wuxuu ka socdaa dagaalku mashruuc ilaa wajaale ilaa kala badh intaas ka socda aagaasimo buu ka socdaa intada waxaa nooga keenaa waxyaalaha mucjisadan ka yaabay waxa kamid ah in xasuusto dulcad baa laga soo sameeyaa dulcadeen ya cuntada laga soo sameeyaa dulcad lxoox baa laga keenaa lxooxdu subagii bay leedahay basas baa lagu soo qaadi jiray dabeetana 6da subaxnimo habadu intayna bilaabmin 5tan cun jirno ay ma jirto waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada daawadayaal mar kale iyo maanta oo aanu mar kale wada joogno taliye maxamed cumar sultaan maxamed yare loo garan og yahay xilligii halganka hadhiwa mujaahid hadhiwa oo barnaamijkii hore ee aanu idinku soo kaga hadlanay SNM qaybihii kale ayaanu maanta halkan oo ah buurta Shariif Cali oo aanu ku sugannahay oo magaaladii Gibil aanu kurka ka taagannahay ayaanu maanta mar kale taliyihii wada joognaa taliye soo dhawow waxaan doonayaa inaanu halkaa ka sii wadno barnaamijkii iyo halgankii SNM iyo taariikhdii facweyneed ee SNM ee galbeedka gaar ahaan gobolka Gibiley iyo deegaanadan oo ahaa meelihii buddiga oo ahaa halgankii SNM dalkan intiisa badan lagu xoreeyay mar kale waxaan soo dhaweynayaa taliye maxamed yare si uu nooga sii jaan qaado taliye su'aasha maanta waxay ka bilaabmi doontaa agabar markii agabar aad dagaaladii agabar ka bacdi waxa dhacday in halka qaxootigii agabar deganaa uu ka baxay oo aad halka ka saarteen kadib markii dambe Hargeysa la soo galay arintii ay saa ku dhacday bal waxaad ka warantaa markii agabar aad dhaafteen ee ka baxdeen halkii aad u jahaysateen ee aad ka sii wadeen halganka adiga iyo mujaahidiintii kale ee uu hogaaminayay Raaga Bidaar tulaab barakaatu su'aasha hadan ka jawaabo waxa weeyeen eedheerkii markaanu qaxootigii direerinay labadii qaxooti markaanu direerinay aanu halka dhamaystirnay ciidan xoog laan markaa ahayn oo ciidan lagu soo xoojiyo ciidanka Hargeysa oo Ismaaciil Cabdi Taan hogaaminayay Buurane iyo anaga lagu xoojiyay kadib halka markaanu qaxootigii dhamaystirnay ee ka baxeen waxaan u jahaysanay waxa la degan yahay faqashtii waxa dib u fadhiisatay halkan caad la yiraahdo ciidan la tajiyay faqashtuna waxay ku dagaalamasay jidkan aanu fadhino kideeble waxa weeye halbowlihii dalka halbowlihii mujaahid SNM baynahayd oo dhaawacii baa la dhigay oo dadkii Hargeysa ka soo qaxay waxa weeye meesha lafdhabarta u abahay kideeble iyaguna waxay doonayeen faqashtu in halka ka gasho dibeetana dhabarka kaga timaada maadaama oo dagaalku ka socdo Hargeysa ilaa kideeble isku furan yahay ujeedada markaa ay faqashtu interestiga u lahayd waxay ahayd inay jidkan marto ciidankii koobiyeen loo jiray galbeed ka deganaaye gaaskii koobaad oo dhan baa markaa jihadan ku soo jahaystay anagu markaa caada ciidankayagii ceel bardaala maray waxaanu ku ballansannahay oo Muuse Nadiif hogaaminayo maxamed Jacboqna uu talixigeen ka yahay inaanu caada isku Cali Xadh isku nimaadno Cali Xadh markaa oo may Cali Xadh isku maanaan iman waxaan isku nimid markaa caada kadib markaa waxay noqotay inaan caadii weerarno xogaa ciidan oo ilaa 100 waa markaa la sii dhigay oo faqashtu dhigtay dibeetana aroortii baanu weerarnay intayda saanka iyo hurin la nagu daray ayaa weerartay dibeetana markiiba caada waan ku ambo bixinay ciidankayga ceel bardaalena wuxuu noogu yimid caadii 3 cisho la 2 cisho markaanu degannahay halkii caada ayaa baa saankii la bilaabay halkan waxa degan Cali Xadh markaa
nimankii SSDF ka soo noqday oo lagu naasuujinayay custom check bon ahaayo cali xaydh ahaa lagu naasuujinayo dee faqashtu keentay oo ma jeerteena baa markaa deganaayo ilaa 200 nina waana ciidankii SSDF too dhaforqilayaal baa leedahay dadkana waxay ku hayaan hurro xun oo waxa weeye sigaarka oo kontrabaan ahaa meesha intay kaga rogaan bay iyagu dib u iibin jireen saan warka ku hayno dadka ka dhacayeen markaa baabuur badan oo markaa meesha ku xayran oo ay markaa ay dagaalkii halkan ka bilaabmay halkan agabar ka bilaabmay waxa la wixii baabuur halka marisay al xayd bay ku xayrmeen way ku haystaan dabeetana markaanu caadii dhowr cisho deganeyn inaan 3 deganeyn 4 deganeyn ma garan karayo in kama xasuusto waxa weeye waxaan u malanayaa inaan 4 cisho deganeyn ama 3 cisho ee ciidankayga ceel badaal soo marayna uu noogu yimid ayaa waxa weeye sahan baa la galay qoladii sahanka la yiri saan taga oo bal halkii kala degayiin taga dabeetana waan soo saaminay cali xayd markaa waxay ka degan yihiin jiida galbeed jiida bariga tog basan mara togaasay line dheer u degan yihiin 3 meelood ka degan yihiin waana dhaforqilaasha la dhaanimo koo ma jeertay waa nimankii SDF ka soo noqday waxa lagu naasuujinayaa markaa goobta oo halkan iyaga kastankan iyaga haysta dabeetana halkan wadadan boorama u baxday iyo tagabila u baxday halka kula beedhaan barba degan saankayga markaa habeenkii baan soo sugnay dabeetana dhalaartii dambe ayaan weerar qaadnay dabeetana 3 markaa waxaan ka weerar tagnay halkii wadadan baabuurtu maraso kama weerar tagin waxaan marnay wada lugeed oo dadkii reemiga ahaa ee dhulka garanayay baa markaa nala jooga dabeetana niman baan kaxeeyay wada lugeed baan ka weerar tagnay kaga iman sabari cali xayd kuna beegan halkii ay deganaayeen faqashtu dabeetana halkii baan ka weerar tagnay dabeetana shaw iyaguna sahan bay soo direenoo xeradayadii bay noo dhaafeen xeradayadii oo caada ah markaa iyagu waxay soo mareen tii gaawaridii marisay dabeetana xeradayadii oo haweenay soo cidi joogin oo dabkii uu shidan yahay habeenamaan ka tagnay dabkii uu shidan yahay bay arkeen guux iyo gariirba way waayeen way soo noqdeen way la soo doonay markaa dabeetana wadadii aanu ka weerar tagnay ay dib u soo raaceen annagu markaa 5tii oo buraaban dagaalkii ayaan xabad bilowna ciidan aad u dhisan buu hayo nimankii madee ka yimid SDF meesha dee in badanna deganaa waxoogaa lagu naasuujiyo dee difaacanaya burcadna aad iska burcaduna ah dabeetana markaa aad bay u dagaalameen dabeetana waan isku raagnay dabeetana halka dhaxda waxaan kaga sii tagnay markaa dameerihii uu ciidanka ceel bardaala watay rasaas ah ayaan meel babac ah oo cali xayd ku dhow ayaan kaga sii tagnay noo joogaan markaa waxa naga haray ninku kaasleedaa baa markaa hogaaminayay iyo nin sargaal oo xasan leedaayo oo rago jal ah faraakishii Soomaaliya ahaayo xilliga ceel bardaala ka soo raacay ciidanka dabeetana adu ilaa 12 nin baa lagaga tago ninkaas hogaaminayo dabeetana xabadii markaanu bilownay nimankii markaa halkii dameeraha iyo soo dub taageen xabadiina way socotaa xirooyinkoodii waxay ka fikireen markaa hadday xagga dambe nagaga iman lahayn markaa waanu annagaa jabi lahayn may suuro gelin waxay yiraahdeen nimankaasi way soo jabi doonaan markay soo jabaan suga oo nimankana afka saara kuwaana suga bay yiraahdeen anagu markaa dee dagaalkii ka meel lagu noqdaa ma jirtay waanu dee laamba baxnay 12 iyo barkii waanu qabsanay meesha gabigeedii dabeetana waxa la wixii dee tiifay waxay noqdeen iyo waxa dee orda dabeetana nisir gaalana waan ku qabanoo ninkii ciidanka xukumeeya dabeetana oo dhaawaca dabeetana dhaawacii baa laga xidho markii dambe naftu way ka baxday dabeetana halkii baanu qabsanay markay u fahmeen inaanu qabsanay markaa in yar baan ku soo sheekay dhaafay raagi bidaar noo taliyaha iyo markaan dagaalku markuu nagu raagay wuxuu sir rasaastii baa go'aasay maad rasaastii oday firfircoon oo libaax buu ahaa oo nin halgamaa dhaba buu ahaa oo ilaahay ugu talagalay halganka dabeetana wuxuu intuu mid askari ka haystay iyo haddana kii askariga iska reebu joog anaa soo qaadaya 2 sanduuq hal sanduuq baa nagu 2 kaliyood baa sanduuqa ku jira anaa soo qaadaya oo labadii namadaas ma soo kaxaysanay markaas rasaastii buu doonay nimankii markaa nimankii way laayeen intuuna raaga soo gaarin ciidankii baa laayay hal nin bay markaa ka badbaado ku kaasladaayo imka jooga saldhiga dhexe ee Hargeysa jooga dabeetana xabadii baa ku dhacday
dabeetana uu firxaday koob iyo tobankii kala way dileen intii kala way dileen qoryihiina way ka soo qaateen raaga bidaaroo ordaya baa meel dhow wuxuu ka arkay rasaastii gubayaan iyaguna way arkeen dabeetana dib uu soo noqdo uu soo ordo dabeetana waxbaday ka soo daba rideen raaga way ku dhacday raaga uu dhaawacmay dabeetana way soo daba yaaceenoo dabeetana wuu leexdo laag yar buu raaco saasoo annagii naguma soo noqone toos iyuu u baxay dee wuxuu sidhi ma garanaysaa annaguna meeshii waanu guulaysanoo waanu haysannaa dabeetana oday laydhaa korneyl laydhaahdo muuse cabditaani muuse cabditaani oo korneyl ahoo saraakiishii asnama weliba lafdhabarta ahaa oo runtii yaqaana dhabar jebinta keligii buu dharjin jiray kaasaa wuxuu arkay diiqii iyo wixii buu arkay iyo rasaastiibu wax buu maqlay dabeetana ilaa 20 nin ayuu yeedhoon anuu ka mid ahay nimankii oo dee soo socda oo soo guulaystay oo dee annaga isla dee nimankii waa la mariyey malaha qiyaastii da u fikiraya yaanu ka hortagnay dabeetana halkii baanu isku bilowno ciidankii kalena uu ku soo yaaco waanu dhabar jebino nimankii wax jiifa yay noqdeen waxba nagama yaacina nimanka halkii bay ku wadaan u baxeen dabeetana qoryahayagii oy qaarkood ay sanam ku qoran tahay oy wataanoo dee markaasaanu fahnay inay nimankii soo laayeen halkii baanu tagno raagaanu weyn iyo ku kaadsi raagana dee inuu nagaga soo noqdo rasaas noo soo doonay baan ognahay inaan moodno raqdii baanu baadhno waxba waanu weyno dabeetana yaa baa ilaahay noo keenay raaga dee halkaasay labadii ka baxeenoo caddii bay tegeenoo caddii bay gaadhay waxaa la geeyey markaa isbitaalkii dabeetana anagu halkiiba iska degnay dabeetana dhaartii dambe waxa way 3 cisho markaan haysanay raagoo taliyihii ciidanka ahaa taliyihii sahan ku yahay markuu noqday ciidankii intii sahanka dee ciidanka cid kale hogaaminaysay Ismaaciil Cabditaani baa ka mid ah ragga hogaaminaya Maxamed Jaac Booq baa ka mid ah oo dee isagu qayb uu haystaa raagay laakiin wadar guud Ismaaciil Cabditaani baa ciidanka hogaaminaya Maxamed Jaac Booqna uu ku xigaa markaa oo isagu Muuse Nadiif uu naga hadhay markaasoo Ismaaciil Cabditaani baa hogaaminaya markaa Maxamed Jaac oo Muuse Nadiif ku xigayna dee ciidankii waa la soo wada keenay markaa raaga annagu gaar noo yahay iyuu nagu inoo yahay waa saankaygii u dayahay dabadeetana aduu rag badan baa naga dhaawacmay uu ku jiro yarkii ilaa berigii la dili jiray Cabdi Cali ku jiro buurana ku jiro rag badan baa naga dhaawacmay dabeetana aduu guulaysanay 3 cishaanu haysanay Cabdi Cali Nuur baa ka mid ahaa raggii dhaawacmay buurana ka mid ahaa Maxamed Cali Tahab rag badan baa naga dhaawacmay annaga saankayagii rag badan baa dhaawacmay ilaa 3 ilaa 4 ilaa 12 baa dhaawacmay dhaawac fuuda soo noqdo waa degteen oon degnay 3 cishaan haysanay faqashii dee way isku soo wacan wadato dee aroortii waxaa lana soo weeray dharaartii afraad baa lana soo weeraray dabeetana weerarkii waan isla ballaarno labadii ayaa naga qabsadeen dhammaantayna markaasaan wada dhaawac noqonay isan ciidankayagii wax dhaawaca wax yar baan dhaawac noqon dabeetana dhammaan dhaawac baa la noqday anigaa ka mid a Daawo Jaahil baa ka mid a raxmadee ma tirin kara saankaygii gebigiisa ugu dhaawamay wada dhaawac baa la yahay hase ahaatee dabeetana markay marasa labadii iyo Ismaaciil Cabditaani oo dib baan u baxnaa oon ka baxnaa meesha faqashtana waa laba dhigayaa dee waa gaas koobaad wala laba dhigayaa dabeetana dib baan uga baxnay wixii aan qaadan karina qaadana dhaawacayga iska qaadan oo la qaad dabeetana sidii baan ku noqonay caadi ayaan dib u noqonay dabeetana anaga kalqore baa lana dhigay kalqore markii lana dhigay markiiba waan soo bogsanay dabeetana waxa ku yaala dhaawac deebla in yar ka hoosaysa dabeetana waan soo noqonay isla markiiba dagaalkii bil iyo 2 bilood buu barti ka socday oo anagu markaa difaac baan nahay marna weerar baan nahay marna difaac faqashtina waxa isku dayaysaa inay jidkan marto oo dee halbowlahan islam de kala jarto deebla aan bixisade oo hargeysa xagga daba ka tagtay doonaysaa muddo socday dagaalkaasi dabeetana mar dambe iyaaba caadi maalin bay naga qabsadeen dabeetana gurmad baa hargeysa naga soo diray sanama laba gaari oo mid garaambi yahay laba sekaawi iyo garaambi baa noo soo diray waxaa la socda markaa Axmed Dagax iyo Mahdi Cali dabeetana way noo yimaadeen baabuurta waxaa xukuma markaa intii waa baabuurtii dee saname Sayd Cali weey dabeetana waxaa xukumana Taliyaan la yiraahdo ee xukumaya oo taliya ah Abib Dhagaxna waa ku joogaa ku xiga
dabeetana ay dhagaxoo mujaahidiintii deesla afraadna ahaa dee lafdhabartii ahaa dabeetana mahad cali halkii iyo inoogu qudbeeyeen axmed dagax dabeetana galabtii baanu weerarnay waanu qabsannay waxaanu ka qabannay gaadhi netiyo rasaas ku wateen iyo madaafiic waxaanu ka qabannay dhowr hoobiye caadi baanu dib u qabsannay sidii baanu markaa u deganaan jirnay mar kastay soo weerar tagaan halkaasaanu ka celinaa dabeetana dee watii hargeysa laga baxay hargeysa markii laga baxay in anaguna soo baxnay dabeetana muuse nadiif oo dee ninka ugu sarreeya meesha oo ismaaciil abtaanne ku xigo maxamed sacab ku xigo raaga bidaar oo isna soo bogsaday dee waanu soo wada baxnay waxaanu weerarnay marka halkan waxaanu soo degnay caata halkan maxaa la dhahaa dhalaadaan soo degnay habeen baanu deganayn dee hargeysa laga soo baxo dabeetana halkana waan ka soo baxnay faqashtiina halkii cali xaydhba dib umay soo dhaafine sidii bay uqooy wayna jabeenoo dee faqash way maratay ciidankii gooskoobaad iyo dee wixii macal xitaa qaar xeeb laga soo dejiyey baa joogay yaa la keenay oo lughaye laga soo dejiyey saylac laga soo dejiyey baa xitaa la keenay dabeetana wixiiba wanaanba bixinoo meesha raqdoodu sanada xanuun laga qaad gaadhay dabeetana sidii markay ahayd baanu anagu halkan dhalaadaan soo degnay arabsiyaan weerarnay arabsiya waa tan xerada termalka iyo faqashu degan tahay dhagax madoobana way degan tahay dhagax madoob markaan waan iska garamarnoo laamidaan raacno kantaroolka yaraa baanu afka saarno dabeetana waanu dhaafinay goor casara baanu weerarnay dabeetana tooxii baan ka talowno magaalada watan dee magaaladu ka sokaysa dhagax madoobe dee dabeetana rasaastii waxaa lanaga soo toogtay daaqadihii dib baan uga soo baxnay dib markaan uga soo baxnay baanu halkay ku noqonnay ishay dambana waan soo talownay dabeetana dib baan u noqonnay halkaa markay marayso iyaaba waxaa la yidhi habaas weyn baa la weeraraya ciidan annaga abaa weeraray oo tegey dee waa hargeysa ka sarraysaa ee ka sarraysaa ciidankii hargeysa anagu soo baxay wax walba oo la soo baxay oo ciidan waqooyihii markaa ma jiro yarya hadduu jirano dee wax buuraha jooga markaa weeye dabadeetana halkaa markii habaas weyn la weeraray iyaabaa ciidankayga bar baa tegey dabadeetana waa laga soo noqday habaas weynna ceshadii dambana aniga iyo raggan ku jiro ayaa waxaa la yidhi madaarkaa la weeraraya oo ciidan saddexaad iyo ciidan urursaoo mahdi cali uu hogaaminaya lanoo diray madaarkaanu xagga she ka soo gallay dabeetana waxaa naga dhaacumay cabdi miirkan imika lugtu go-an tahay daahir maxamed cige oo daahiryaraa noo taliya ahaa markaa intaydan meesha tagtay ilaa 60 nin baanu nahay oo qaybtan laga qaaday dabeetana daahir maxamed cige maxaan ku dhaha cabdi miir nin kaloo saddex baa naga dhaawacmay waxba wax kala dhimashana maanaan yeelan dabeetana waan ka soo baxnay madaarkiina kadib markaa dabeetana kala baydh ayaa la raq furtay kala baydhkeenan gabiiley dagaalkii ugu xumaa kala baydh buu ka bilaabmay dabeetana inta ciidankan afraad leh shanaadoo markaa magacu baxay oo sababuu ku baxay dee markaa tiraa laga soo tiriyey xagga iyo halkan laskuu keenay shanaad u badan boqolkiiba 190 u badan shanaad dabeetana dagaalkii halkan ka bilaabmo halkan in cumar jees baa hogaaminayay kala baydh markaanu su-aalan kaa weydiiyo markii hore barnaamijkii hore kasoo sheegnay kala baydh waxay ka mid ahayd meelihii aysanam aad markii aad soo gasheen dalka aad aad uga soo dagaalanteen ee aad kaarayaasha qaarkood ku gubtay beebeeyada markaan beebeeyada gubaya waa markaa waa markan Soomaaliya waa markan aanu xagga ka nimid aad ka noqotay ayaanu beebeeyada gubanaa oo dagaalku markii hore xagga ka baanaa gelin xaggan aanu ka nimid oon ka soo noqonay dabeetana kala baydh buu ka bilaabmay markaan beebeeyada gubaya waa markaan kala baydh degnay agabar ka soo noqonay wey dabeetana dagaalkii sidii buu ku bilaabmay agabar baan ka soo noqonay dabeetana kala baydh markaan ka sheekaynay beebeeyada gubaya waa markaanu agabar ka nimid iyo ciidankii uruskii oo dhan badnaay oo dhowr nuuc magaranaysa sayid cali iyo labaatanaad iyo shanaad oo dhan oo dhammaystiran oo ururkii labaad laho ururkii koowaad laho ururkii saddexaad laho oo agacdiyo raggaasi hogaaminayaan cumar dheere iyo buurana iyo raggaasi hogaaminayaan ayaa markaa meesha maraya maxamed jaac booq baa hogaaminaya markaa dagaalkaa taliyaha guud ee markaa ina biixiyo na waa dee santarka sare wey markaa ina biixi aad buu ugu badan yahay oo mar walba wuu nala joogaa sida badanka ah dabeetana dagaalkii wuu bilaabmay aroor ayaanu weerar qaadnay aroor dhaxan baa dhacasa waa bishii 11 qiyaastii dhaxan la yaaba baa dhacasa
xero yaroo kala bayr ku ahoo baabuur badan taallo ilaa 5 gaari baa yaala laba beebe iyo xabad siiba xabad suuga iyo qori kale oo nooc kala ah tarasati waxa maqaan ka maana arag oo de markiiba waan baxo gaari buu saaraa xabad duunaba ayuu ahaa markaa dabeetana waan weerarnay aroortii horan weerarnay waxaan ku qabsanay meeshii markaa waxaan la socday nin wariyin oo nala socdaa oo la yiraahdo waxa la oran jiray baaw baa la oran jiray oo ku dhiman doonaa markaa kamaradu nala dhax socdaa nin aad iyo aad friida oo active ah dabeetana meeshii baanu qabsanay waxaan ku qabanay markaa xiradii yaray shantii baanu gallo xabad beebe iyo xabad jiiba dabeetana maanaan kaxaysane horaan u dhaafnay dabeetana halkanoo suugii baxsan baabuurtii baxsatay iyaan haddana mid ku qabanay halkan xunshali suugii tuumbada xabada kaga dhacday naaftada qaada dabeetana eer iyo qaataalkiibu ku dabay annaguna waanu qabsanay dabeetana annagana uu noo istaagi waayey ila show eer buu qaatoo dee tuumba yaa dalooshan dabeetana suugayagii baan ku soo jiidnay oo tirdaa soo jiiday nin la yidhaahdo nin iminka tabliiqiinta ahoo la yidhaahdo waxaa la dhaha magaca buu leeyahay mujaahidiintii ahaa ayaa isteerinkana soo qabtay shoon baa la dhaha shoombe waa tabliiqiinta iminka saan ku ogaa dee hadduu iminka nolol baan ku ogaa bil iyo waxoogaa beebeeda xilligana gubayaa waa xilli kala bar bay markaa maraysaa oo markuu soo gabagabaynayey laakiin bil iyo waxoogaa buu qaato waxa weye beerdheyle diyaaraduna wayna rushaynaysaa beerdheyle diyaaraduna wayna rushaynaysaa weerarkaasna mar qura isba taagayo markaa inay halkan naga jabisay doonaysaa waxuu ka socdaa dagaalku mashruuca ilaa wajaale ilaa kala badh intaasu ka socdaa aaggaasima buu ka socdaa markaa mashruuca way qabsadeen dabeetana dib baa looga saari doonaa waqti dambe dabeetana calaa kulli xaal markaa xigmaddii waxay noqotay bil iyo bar markaan meelaha marano aduu bil iyo 10 cisho miyaan dhahdaa iyo in cumar teers dhaqaajiyo siro gow iyo dee meeshii ka faraha ka qaaday ciidankiisii meel degtaankada meesha marasana waa ayax anaga markaa casarkii diyaaradana rushaysa aroortiina xabaddu way bilaabantaa cuntada waxaa la nooga keenaa waxyaalaha mucjisadan ka yaabay waxaa ka mid ah in xasuusto dulcad baa laga soo sameeyaa iyo cuntada laga soo sameeyaa dulcad luxoox baa laga keenaa luxoodu subagii bay leedahay basas baa lagu soo qaadi jiray dabeetana 6da subaxnimo xabaddu intayna bilaamin 5taan cuni jirnay ay ma jirtay horta may fahanti dabeetana waxyaalaha dadka shacabkii ay reer Gabiley waliba u gaarka ahaayeen bay meel kale lagu arki jiray ciidanka gurmido garab istaag waxa weeye aroorta 5 markaan xabadda bilaabano iyo lixoodu nala joogtay iyadoo subagii leh dulcad baa lagu soo dubay waxyaalahan aad u xasuusta dadka sida dadku u xamaasisay iyo sida u qiireysay iyo sida loo dhimanayo oo dee faqashtoona naga dhimasho badan annaguna dee dhimashada waan leenahay oo mid badan baa mujaahidiintii aad bay ugu maratay cagacda iyo haye dagaaladii SNM ee kala baydh ilaa agabar bal SNM ciidamada galbeedka ka dagaalamayaad ka mid ahayd bal dhimashadu sidee ahayd intee leer baa ka dhintay wallaahi dad badan baa ku dhintay dad aad u fara badan baa ku dhintay ku dhimashada badneed halkee waa kala baydh iyo alxad ilaa caata imsaadka kala dhintay wallaahi tiradee kuma hayee laakiin iminka matalan sahanka iyagii ahaa 250 waxaanu kaga nool lahay aniga kowdhe cali miyir cali madoobe biyo ismaaciil nuur madoobe waa imsa aniga kow cali madoobe cali miyirka imanka dhakhtarka ahee biliiska ah 3 soo maaha ismaaciil nuur madoobe biyo labadii nina dhaawac jiray midna ahaa haybe midna ahaa caymad 7 soo maaha okay 8 meelaha kama badnaan 10 kama badna dhowr iyo ku takiin ciidanka kale maxaad maranaysaa ciidamada kale ee dagaal ka daran kala baydh kale imsaad kaga dhintay kala baydh ciidan lixaad laba ku dhintay kala baydh aad iyo aad ciidan lixaad le suugii markaan haddaba soo kaxaysanay waxaa noo sameeyey suugii geeyada halkii labada beebeydii yaaleen raaga bidaar jidgoyntu ku jira halkan maartay aw samire ayaa jidgoynta Gabiley la dhigay ciidan xoog labu wata halkaa la dhigay dabeetana intii dagaalku halkan ka socday isna halkan uu dagaalka ka wado difaacay buu ahaa dee jidgoynta ahaa dabeetana bacaw yarkii yaraa wariyihii beebeegii iyo jiibkii halkii aanu kaga tagnay ayaanu qabsannay iyo sawirra ka qaadanaya suugiyo la soo jiidana wuu yimid sawir buu ka qaatay dabeetana faqashtii waxay soo jabisay
raaga badar jidgoyntii halkan maartay jidka iyo jibsi way la afar beebe dhow taangi dabeet anagu markaa waanu maqannahay de xaggan aan ku maqannahay dabeetana suugina la keen halkan laakiin ciidankii afatarigan ahayn xaggan aan lagu maqan oo de waqooyiga oo de xaggan faqashtii xaggan aan la dagaalamana dabeetana way soo dhabar joogso maxamed jacboq iyo wariyihii iyo baabuurtii oo halkii taallaa de halkan laga yimi baca wuxuu mooday markaa in kuwana la soo qabtay beebayadiibu ka hortegay halka kastanka dabadiisa beebayadiibu ka hortegay kiiraa wariyihii baca waa la odhan jiray lagu naxariistay dabeetana in la soo qabtay moodo dabeetana maxamed jacboq la hadloo yidhi kamaradii maxamed baa markaa uu maqli waayey war waa faqashtii maxamed jacboq iyo way dhaqaajiyeen kii yaraa uu maqli waayo dee aad buu qiraysnaayo kamaradii buu la raacay halkii bay ku dileen kamaradiina ku qaateen oo ilaa aroortii naga duubayey isna ku dhintay ilaa u naxariistay dagaalkaasi muddo sida uu ciidanka sanam ugu dhintayna la yaab bay ahayd faqashtu say ugu dhimatayna la yaab bay ahayd intaa markii laga gudbo wanigii kuu soo sheegi jiray meelaha mucjisada ka mid ahaa wajaalo oo kale mashruuca oo kale waxyaalaha wuxuu ahaa isaguna dagaalku faqashtu eeg hargeysa markii sanam ka soo wada baxday dagaalka xaggana loo wareejay qaybta wixii galbeeda ee sanam hargeysa ka yoodhan halkana dee yaa badankeedu ayaa culays la saaray oo halkana dee dagaal uu lixaadiyey ka socdeen dabeetana wajaale baydheelayadna way soo weerartaa laakiin wajaale waa la difaaci jiray sida badanka ah dabeetana mashruuca aakhirkii u dambeeyey ayay qabsatay markii halkan horta lagu kala tegayna cumar jeesna iska tegay kadib ayay hadana qabsatay mar soo weerarto way qabsatay ciidanka mar xagu ka soo weeray marka ciidanka faqashay wuxuu ahaa un ciidankii gaaskoobaad yun buu ahaa laba taangi iyo waxay wateen iyo maxaan ku dhahdaa waxay wateen laba taangi gaari shilka mid jiiba mid suuga dabeetana xilligaa ciidanka waxaa hogaaminayay ninkii maxamed cali loodhan jiray ayaa hogaaminayay dabeetana maxamed cali markaa wuxuu nagu yidhi raartaa markaan weerarna aroortii baabuurta waa la riixayaa riixis baa lagu tegayaa mashruuca halkan ciidanka deeriyaankaanu baabuurka ka riixin dabeetana riixis baan ku tagnay saan u riixana dhulkuna daaq buul oo de waa halkan ciidanka deeriyaanka ilaa mashruuci waa ciidanka deeriyaanka ilaa mashruuci ayaanu riixis ku geynay dhulku daaqu cirkuu leegyahay qofka u liqayaa baabuur la riixayana maxaad mulanaysaa riixis baanu hoosidii ku dul tagnay afsaar baanu kaga dhignay 5tii subaxnimo labadii taangi mid baa istaaray gaarigii shilkaa waanu qabanay jiibkii waanu qabanay labadii taangina kii istaaray mid baa istaarmi waayo dabeetana jiid buu siri dibdib buu soo galo waanu ku dul qabanayba labadiiba bartii baan ku gubnay labadiiba bartii baan mid baa kii istaarmi waayey raggii way furi waayeen oo inay furaan baan damacnoo dabeetana way furi waayeen dabeetana markay furi waayeen baan xabad ku dhuftay halkii baan ku gubay midna kii kalena nin kalea ku gubay dabeetana halkaa annaga waxaa nagaga dhintay markaa intayadii qaybta shanaad dirawalkii suuga oo dayib la odhan jiray ayaa naga dhintay waa suugeed kala bar ka qabateen waa suugii aanu marka hore wadanay kii faqashtu way qaadatay watan jidgoyntii markay soo jabisay wariyihii waa tan dishay saddexdii gaadhiba halkii baa lagu qabsaday ayaa lagu qaatay oo dib bay u qabsadeen jiibkii beebeegii suugii aanu soo jiidnay intiiba bartiiba lasku keenay moogti waa kuwan jidgoynta soo jabiyey waa kuwan wariyihii dilay dabeetana halkaas intii saddexdiiba halkaasay ku qabsadeen markaad qaybtan aad ku qabatay ku gubteen labadii taangi baan ku gubnay gaarigii shilka ahaa iyo jiibkiina waanu ka haysanay annaga waxaa naga dhintay markaa ciidankayga shanaad ahaa darawalkii suuga cambalaash wadi jiray suugii askarwada ahaa doog ahayd ninkii wadi jiro dayib loodhan jira baa naga dhintay wax kale nagama dhiman faqashtiina way ku ambabaxday bartii way ku ambabaxday oo shilkihii ugu daraa bartaasaanu ku qabanay dabeetana edheer baa la siiyo si edheer baa ka haysatay oo nala socotay qayb edheer baa nala socotay dabeetana iyaga qaatay iyagaa bilaatagna ka yahayn oo isaga iyo jiibkiiba iyaga la siiyey oo way qaateen magaranaysaa oo dee ciidan nala socdayna way ahaayeen oo dagaalka way nala qayb galeen dabeetana ciidankii wax qabtayna ka midun bay ahaayeen dabeetana sidii markay halkaa ahayd
iyaan waxaan kugu noqonayaa meel baan kugu yar noqonayaa markii aanu garhka yagoolka weerarnay garhka yagoolka waa qoladii xeebta ciidankeena xeebta ka saartay buu ka mid ahaa cabdiqaadir ninkii loodhan jiray mareexaane maxaa loodhan jiray cabdiqaadir waxbaa loodhan jiray dee xeebaha dee ina maxay cali barre dee cabdicasiis cali barre kaasaa ciidanka wata dabeetana halkanuu weerar ka qaaday waa kii garhka yagoolka qabsaday wanagii weerarnay markaanu weerarnay afraad iyo sancaani waxay ka galeen buurta oo halkii ciidanku deganaa uhdi ayay galeen annaga oo shanaadaha iyo ciidan saddexaadna waa tajidweynta noo dhigay wanigii hore kugu soo sheegay halkaa waxaan ku qabannay markaa wani ku lahaa taanki dabadheere ah wan markii dambena haybay gudan jiray faqashtii baa soo gashay dabeetana halkii ku gubnay waa maalintaa lafteeda weeye waa inta yar baan kugu noqonayaa waxa weeye faqashtu inay mucjisooyinka aan maaragtay berigaa sanamtu ay ku samaysay ciidankaa ciidan lixaadla buu ahaayo uu jabayoo baabuurtii buurtay ka degeenoo halkan waniga taangi jidgoyntii ku qabannay baabuurtii baarqab ayaa show fiidkii ka baxay halkan annagu markaa dhulka faqash baad idiin imanba isma lihindii habeenkii iska seexannay dabeetana show habeenkii fiidkii intay baxday ee halkan ijaaro ka baxday ay taysa martay iyaabay halkaa ka wareegtoo dabeetana buurtii garhka yagoolkaba xagga dambay kaga timid annagu aroortii markaanu toosnay odagii haybe cumar badan baan ayaa nala joogayo oo dee ahaa 11 isaga iyo waxa isku xigay markaa 11 qaybta 11 waxa isku xigay isaga iyo cabdilaahi darawal oo haybe ahaa markaa taliyaha haybe cumar magan baa taliyaha ahaa 11 cabdilaahi darawal uu ku xigay taliyaha ku yahay annaga markaa qayb ahaanna waxaana wata annaga nin technicadayana waxa wata daahir maxamed cige ururkana waxa wata nin loo jiro cumar dheero dhaarta dambe dhiman doona dabeetana faqash baa idiin imanba qalbigayga kuma jirtaba oo de u jabeenna waan ognahay show halkan gabile baa laga baabulayo saddex taangi iyo ka kaxaysteen iyo dhowr beebeeyo halkan ka baxeen oo ijaaray mareeno halkaas ka wareegeen aroortii waagu markuu dilaacay iyaaba xagga dama buurta ka yimaadeen ciidankii buurtu show u baneeyo markaa deeso uu maartay uu baneeyay odayga haybe cumar oo xagga aroortii hore ku kalahay oo ordaya ayaa soo galay anagu markaa xaggan markii ay soo galayeen waanu amba waxaan raadkii baanu gurno laba gaari baan ugu tagnay meel lagu dhow oo ay ku jiraan laba dhuumood baa saaran mid waa laba bagaase mid laba dhuumood baa saaran taransata midna uu maray oo dhaawacii iyo rasaas baa saaran dabeetana markaa dooxuu ka galo jeentaa hore ayaa ka maqan gaariga labada gaariba uu ka galo dooxuu ka galay labadii baanu iska soo jiidno gaari shilka ah oo ay saddexaad lahayd baan noo soo jiido yaa ka saarayo dabeetana waan soo istaarno ismaaciil bagaasa markaa aniga jiibka ii wada ismaaciil bagaas oo magaca maalintaasaan u bixiyey markaa dabeetana darawal labaad baa nagula yaa gaariga saaraa darawalkii labaad baan ku uri jiibka kaxe aniga ismaaciil bagaasa markaa waxaanu fuulay kii qorigu saarayo dhabadhumoodkii ee bagaasaha qoladii saddexaadna kii marhnaaye rasaasu saarayd iyaguna ayaanu qaateen iyaguna ka soo baxnayo dabeetana halkii taangigaan ku gubi doonay taangigu yaallay ama ciidankaygaa fatrigii joogay waan ku soo noqonnay annagoo debantii wadanna hayba ordayaabana soo galayba waar faqashtii baadna soo gashay xagga dambe naga soo gasho show waa baarqaba alan ka baxay gibili dabeetana taangiga gubuulo laamir baan ku dhuftay waa taangigaan kaaga soo sheekeeyey dabeetana labadii markuu ololi waayey buuri mar hadduu baktisanya ma olole harada soo qaado gubo dabeetana haradii baan ku gubnay markaa sidii buu ku gubtoo dabeetana waan baxno weerar baan ka hor tagnay babaca maaragtay galeen galbeedka faqashti waxay u soo degaysaa markaa buurta galbeed bay uga degaysaa buurta dee garhka yogolka dee iyo galbeed bay uga degaysaa annaguna dee galbeedka intaan halka ka baxnay dhabool intaan ka baxnay haybana dee raacay oo dabeetana dee siriga afuufay baanu galbeedkii ka soo galnay ciidankayagii afraad iyo shanaa ahaa sancaan iyo wixiina show mabay dee kamayna daba iman dabeetana wayna baneeyeen dabeetana labadii taangi ee meeshii lagu gubena isla markiiba silsilad bay gashadeen dee afraad iyo ay gubeen ahaa nin la yidhaahdo nin uraag la yidhaha baa gubay oo afraad ahaa sida laga sheegay dabeetana calaa kulli xaal markaa intayadii saddexaad iyo shanaadii
bay taangiidii barti ka heleen waxaa nala socda nin dhakhtarahoo reer gabilayahoo saxardiid loohan jiray ilaa u naxariistee nin ay isku dhow yihiin oo kalena wuu la socday oo saraakiishiin ahaan mulaya dee soomaaliya soo magaranaysa aanan markaa aqoon u lahayn saxardiid laakiin waan garanayaa oo mar buu dhaawac nagu daweeyey oo baashin lagu daweeyey baashin loohan jiray masaajidka si fiican baan u garanayaa dabeetana kaasaa nala socda dabeetana waa la jaboo tagnikadiyadiina way fiiqfiiqanto tarasatihii aan saaraana ee aan soo qabsanayna ma dhacayo xabad baa ku go'aanshow dabeetana anu jiibkaygii baan dib ugu noqday markaan dee ciidankii u keenay oo ismaaciil bagaasaa gaadhigii kaxeeyey dabeetana jiibkii baanu ku ridno dabeetana rasaasta iyaduna shalay baanu ku dagaal gallo 3 midbaa bay igu jiraba dabeetana rasaasta way naga doo dhaartii baanu ku dagaal gallay dabeetana la mid markaan riday baan ayaa halkayo dabeetana waanu jabnay dabeetana dhakhtarkii iyo ninkii la socday wala naga diro beebeeba intuu ku dhuftay intuu xabad ku dhuftay xabadii baroonkii uu nagu ridayey waa ku dhacay dabeetana markii dambana turasuu ku dhuftay dabeetana aduu annaga waxaa naga dhintay markaa labadaa nin oo doctoorkaa iyo nin la socday iyo ninkii ururkayaga watay cumar dheere baa intayadii ka dhintay beebeeyadii waxay ka daba tegeen halkaasaa u leexdeen anagu markaa xaggii kaynta oo xagga oogada ah baan u leexanay saddexaadii iyo wixiina abuuriin bay hoosta ka mareenoo beebeeyadii baa kala daba tegayoo iyagana rag badan buu ka laayay dabeetana halkaasay markaa faqashtay isku taagtay annagu markaa dabeetana halkan gorayaan tagnay dabeetana istirinayo dee nimankaas dhimay baa layidhi doctoorkiiyo wuxuu galabtii baanu raqdii sooriyaan dersin bal soo qaaday mujaahidiintii waanu soo weyn dabeetana aroortii horaan haddana ku soo noqonay habeenkaa markaanu degenayn meesha ninkii baarqab isla markiiba maqribkiibuu show kulanyaystay xagguu u baxayaa wuxuu u baxayaa allay bada iyo geedbalaad inuu qabsado halkanuu ka soo wareegay jaaro oo galbeed buu u soo baxayo markuu taysa marayo iyo koru jiireeyey allay baday buu isku shubay annagu markaa aroortii markuu waagu bariyey xilligaa isagu allay bada kusii socdo annagu meydkii baanu raadinay adiga hay cumar baa yidhi meydkaa raadiyoo dabeetana meella labaanu ka soo hellay meella 3 doctoorkiina waanu soo hellay oo beebeegii magaranaysaa geeri uu turus ku dhuftay kii kalena uu maray cumar dheerana magaranaysaa waa dhaawac isagana baroonku baa jiiray dabeetana intii waanu soo qaadnay ilaa 5 kalena meel baan ka soo qaadnay meella 3 baan ka soo qaadnay meella 2 meella 3 dabeetana sidii baanu gorayo ku aasnay sidaa markaanu u aasana lii allay bada bay faqash idiin dhaafto geed ballaadh intay qabsatay iyo idiin dhaaftay allay baday ba ku sii socotay in yaru jirtaa dabeetana jiibkii cabdi xuseen daahirin la yidhaayo allah raxmay bir dhawo dintay oo biliiska ahaa iyo oday caburiya la yidhaayo iminka taangiyada ah iyo dirawalkii ismaaciil bagaas la bagaasi buu kaxeeyey dirawalkii labaad ee kan wado la odhan jiray bariis baa la odhan jiray intayadaa iyo 2 askari baan bartii kaanba baxay ilaa allay baday faqashtii waxaan ku kulannay alla beedoo dhankaa ka soo gashay banana galbeedka iyaanna bariga ka soo galay allay badoo dhan baa jabtay dadkii umaan raacna dee jiibkii waxa way keligaa ma dagaalami kartid gaari keliyaan wadanaan wareegnayo dabeetana ciidankayga shanaad baanu raadino wareeg dheer baan soo sameeyey sidii baanu ugu tagnay maxamed jaaboq iyo halkaa gurmad ka soo sameeyeyoo dabeetana dibdib baa looga wada baxay dabeetana halkii yoomkii halkii bay deganayd allay bada agteedii inta allay bada qabsatay bay allay bada agteed degtay dabeetana habeenkii ba iska deganayd annaguna meel xuduudka ka yar sarraysa baa ciidankii lagu ururiyey oo ciidankii xaggan tegay aan kaga imid gorayona waa la soo qaaday dabeetana halkii baa lagu ururiyey dabeetana geed balaadh bay dib u fadhiisatay habeenkii labaadna geed balaadh bay habeenkii labaad degtay baarqab baa wata baarqabo waa midinkaar ku dhacday weeye dabeetana halkii geed balaadh bay degtay 2 habeen bay deganayd intii annaga ciidankaygii la abaabulaya ciidankii garhka yogolka tegay kaga imida 100ka ahaa la soo qaadiyey wixii intii loo habeenayey habeenkii saddexaad baan u diyaar garoon annagoo weerarana 5tii baa la namkiciyo dabeetana 4tii bay idna guurtay habeennimo masirdoon bay heshay oo warkayga heshay ma garanayo 4tii habeennimo iyo dib u guuray ilaa gabile baabuurtii baa la wada istaaray mar qura annagoo meel dhaxa marano dabeetana waan iska sugno waa la dhaqaajibaa miyaad gaari karaysaa ciidan dhaqaaqay ma gaari karaysid moogta waa baawur wata way iska soo ambabixeenoo hargabili bay ku soo noqdeen waxa weeye dagaalkaa kala baydhku iyo jiidaasu
mucjisa caadi u ahaa waan cumar jees iyo rag badan ay ku muslimeen buu ka mid ahaa laakiin tali dagaalkana idinkaga qabsaday dhawoolq marka loo eego SRM iyo ciidamadii ninkii ka dagaalamay dagaal halis badan dad ka dhinteen oo ciidankii ku jabay oo dharaartii hore anaga guuleysanay maalintii hore anaga faqashtaa beed ku basnay oo waxa weeye ilaahay baan ku dhaartay waxba kama bixin baabuurtoodu waan ku sheegayo dhaxda iyo wada taale oo jidgoynteediina waxbay waxyeello weyn bay u geysatay markii buurta laga soo jabiyay jidgoyn baan ahayn ciidan xoogan oo xadlan waan ahayn oo waliba xula laakiin wax badan ka dhinteen dagaal anaga markii dambe intayadii galbeedka iyo ciidankii saddexaad anaga saddex baan naga dhintay ciidankaas saddexaadna rag badan baa ka dhintay waan gartay faqashtii markii allay baday ka soo guurtay ay soo gashay Gabiley idinkii annaga dagaalka halkii baan ku sii wadnay waxa weeye dee dagaalkii kolba meel buu ka bilaabmay waxa weeye mar wajaal la soo galo mar kala bar la soo galo mar Gabiley la soo galo arabsiya laba jeer baan weerarno dambe arabsiya kuma aan guuleysan jirin hadda iyo jeer la weerarka sababtu waxay ahayd waxa weeye xiradu xagga shay ka degan tahay marka dharaarta aanu garka iyagoo ka qabsananay talagalka bariga inaan ka soo weerarnay oo xirada jarmalku wadiga arkayo bariga ku taala faqashtana halkaas ay deganay halkan galbeedka saddex jeer baan ku weerarno saddex jeer baan kuma guuleysan sababtuna waxay ahayd magaalada ka sukaysay xirada magaalada noo dhaxgelayeen oo daaqadaha markaan yaala naga toganay daaqadaha naga toganay marka xiradii ba islaamaana gaari jirin markan haddaba aanu garka iyagoo ka tagnay waxa talagalka iyagu ahayd xiradeena xaga ka timid inaanu bari ka soo galno agarsiyo oo xiradan dhagax madoobo wax tusno iyo talagalka iyagu ahayd laakiin si wanaag may dhicin marka dagaalkayga sidaas sidoo ahaa dee dalka way naga qabsano baarqab Gabiley baan ku qabanay baarqab oo qabatay Gabiley baa loo qabtay Gabiley baa ku dhintay way aad baad maasantay baan haysta maanta barnaamijka intaas ku diinna وكذا هذا بلاش صاحب مي براشكن ما انت تكفي يربا خطريا وجاله وجاله dagaalkii ugu dambeeyay wajaaله anu xagee ku dhaawacay waan kamid ahaa bilow dagaalkii ugu dambeeyay dhaawacay ugu dambeeyayna halkan ka soo weerar tageen Gabiley dan iyo waxba laga soo abaabulay meelo badan baa laga soo abaabulay gaas koobaad nambar baa laga keenay wajaale nagu soo weerar dabeetana markay wajaale nagu soo weerareen anagu meena waxaan deganahay geed balaad laakiin ciidan baa wajaale naga jooga wajaale weerar ku soo qaaday way qabsadeen dabeetana waanu soo anagii baa deeso amba baxnay aroortii ayaan ku waabarisan waanu kicinay waanu soo jabinay halkan banka iyo waxbaanu soo marinayo dabeetana gaari suugayo waxbaanu ka qabanay xabadtiibana waanu ka qabanay dabeetana aniga halkaa banka dhexdeeda ayaan ku dhaawamay afartayadii shan baanu jiib ku saareenoo ninkii darawalka mooyaane afartayadii kalaba dhaawac baan noqonay markii laba dhaawacgaas dhaawac markii saddexaad ayo mar waa kii mar agaan cali xarid baan ku dhaawamay marna Gabileydan ayaad ku dhaawacay kala baydhan dee maxaa halkan jidgoyntan kala baydhka maraan suuq qabsan jirnay oo aniyaan halkan maartay aw samarre markii saddexaadna wajaale yahay marka dabeetana waan dhaawamay afartayadii shantayadii darawalkan waa naga baxay shantayadiiba dhaawac baan noqonay dhaawac badan baanu yeelanay dabeetana halkan ceelka iminka masaajidka laga sameeyay wajaale balna dhigay ilaa sodomeeyana balna u keenay meedu badan aniga markaa inta dhaawac la soo garab dhigay yarkan yaray iminka maayarka iid la yiraahdo iidkaasa kamid ah waxa kamid ah ilig hoose ku yaro ilig hoose loo jiro bil wadanta rag badan baa kamid ah dabeetana all soo bisadu wajaale waa xilli laga qaxay oo ciidamada deganaa jir xayawaanku markuu raqdan dadka bilaadanka barto waa khatar cadiim waxa la wixii bisadaha ee wajaale ku noolayd yaa meeshii anaga suuqayt waan gartay dabeetana nin obsiye la dhaw imka jooga maartay halkan jooga oo mujaahidii ahaayo oo dhaawacna kamid ah yaa markaa dhaqdhaqaaqaya cabdi waxa la dhaahdaa obsiyo Saleeman baa la dhahaa Cabdi Saleeman bay walaalihiin imka tale soomtu ka shaqeeya dabeetana aniga markaa halkan ay ka dhacday dabeetana halka dhabarka ka baxday anu markaa waxaan isleeyahay waa tabantoo dhabarka waa tabantahay waan isleeyahay dhaqaaqa waan iska ilaalinaya waxaan leeyahay war waa tabantahay adigu laftuna hadiyo jalaal markaa daaqa samayso haddii laftu tabantahay waraaqeega way xanuun badan tahay markaa sidii la ii soo qaaday beerka yaa la ii soo dhigo dabeetana waxa weeye sidii dhinacaas markii dambe la dhigay
waxaan isleeyahay wad samatoba lagu dhaqaajin baan isleeyahay xabadu halkan ay ka dhacday show lafan way marin intay midsigta dhexdeeda martay ayuu maxay kala wax ee doodka martay kelida afkeeda ee ka baxday dabeetana obsiyahaas aan kan iga jiifa ka yare iidan kan nooga jiifa kuiro ilgu hoosala adu raxan baa agtaray ka jiifta oo dhaawaca dabeetana bas baa markaa basaskan dhaawaca gurasa markaa noo imanayo la sugaya bisadii ayaa magaalada nagu soo tareeray dhiiga rag sawirnay oo dhiigan rag urunaya dabeetana obsiyaasan ku dhaado bal naga celi bisadaan oo bal bisadaan naga celi waxyaalaan si xasuustay kamid ahayd moogta dabeetana dagaalkaasi dagaal asna mucjisaab u hayo khatara waxaa naga qaaday bas baa noo yimid sidii baa nagu qaaday masaajidkaa la geeyey yaa duriya horta la geeyey duriya markaa aniga waa laga sii qaaday dabeetana masaajidka mabaan show nin jabanba meehii xabadun baa deentan oo hilibkii badnaa la baxday uu dadku argaca yeelay dabeetana dhakhtarkii markuu sidaa eegay ayuu eegay dabeetana ma qasbaalkan iga geliyey xagga ka saaray arma jabnada markaa suuro dabeetana dheeri waa in la dhayo buuri maalin kasta waa la dheyi jiray si aan wuxuu dhaaday qurun keento xangullada iyo gaadhaysaa oo qurunkaas xangullada u gaadhana baaril baad noqonaysaa dabeetana dhakhtarkii joogay isagaa dheylay dhayaa waa muddo yar baan ku bogsaday waxaan wax uba haynba admay fahanti dagaaladii gabiley waan ka soo qayb galayba isla markiiba daawadayaal maanta barnaamijkaasi oo qayb ka ahaa barnaamijyadii halgankii SNM oo aanu ku wareysanaynay mujaahid hariwaa ama taliye maxamed yare oo ka mid ah saraakiisha booliiska ee Soomaaliland kana mid ahaa mujaahidiintii nafahooga u soo horay halgankii dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa aniga oo ah wariye Iskariino Ibrahim iyo Cabdisalaan Maxamed Bide oo wariye caan ah oo aad loo yaqaano ayaa intaasi maanta idinku diin doona tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kale oo la mid ah kan oo kale nabadgelyo taliya aad baa u maasanta waan kulli waa sii wada doona barnaamijka haddii aan leedahay waxaa idin hadhay free state kiiba hadhay wax badan baa idin hadhay insha Allah